Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada saaxiibayaal warbixin ku saabsan cilmi baaris la yaab leh taas oo tilmaamaysa in uu hakad gale qayb ka mid ah wareeggii dhulka, taas oo keeni karta arrin cabsi leh. Isbuucan gudihiisa daraasad ay soo saareen saynis yahano ayaa adduunka oo dhan ka yaabiyey, sidoo kalena dadka qaar ayaa cabsi ka muujiyey. qaybaha hoose ee dhulka loona yaqaano inner core ayaa joojiyey wareeggii ay hore u samayn jireen bari ilaa galbeed. sidoo kale waxay saynis yahanadu ku dareen inay suurtagal tahay inay hadda gadaal u soo wareegsadaan galbeed ilaa bari, taas oo ka micno ah inay qoraxdu ka soo bixi karto dhanka galbeedka. wareegga xudunta gudaha ee dhulka ayaa macquul ah inay hakad gasho oo ay xitaa dib u noqon karto ama gadaal sida ay sheegayso cilmi baaris dhowaan la soo saaray. dhulku wuxuu ka samaysan yahay 3 lakab, gudaha ilaa dibadda. xudunta adag ee gudaha waxay ku taallaa meel 3200 meel ka hooseysa qolofta dhulka, waxayna ka socan tahay qaybta xudunta hoose ee dareeraha ah, taasoo u oggolaanayso qaybta gudaha inay ku wareegto xawaare ka duwan wareegga dhulka laftiisa, iyadoo dhexdhexaadku yahay ku dhowaad 2200 mayl. xudunta dhulku waxay la eg tahay cabirka meeraha Maaris, waxayna ka kooban tahay inta badan birta iyo maadada nikelka. cilmi baaris lagu daabacay joornaalka Nature Geoscience, Yin Yan oo ah cilmi baare kaasoo ka tirsan jaamacadda Peking, iyo Son oo ah professor ku-xigeenka jaamacadda Peking, ayaa daraasad ku sameeyey heerarka seismic ee dhulgariirada, kuwaasoo ka dhex dhaca xudunta gudaha ee dhulka. waxa ay heleenna waxay ahaayeen wax lama filaan ah. laga soo bilaabo 2009kii diiwaanada dhaqdhaqaaqa dhulka gudihiisa ee seismic oo markii hore isbedelay waqti kadib waxay muujiyeen farqi yar. tanina waxay yiraahdeen waxay soo bandhigaysaa in wareegga xudunta ee gudaha dhulka uu joogsaday. waxaan muujinaynaa indhayn yaab leh oo soo saaraysa in xudunta gudaha ay ku dhowdahay inay joojiso wareeggeeda 10kii sano ee lasoo dhaafay, waxaana laga yaabaa inuu isbedelo jihada wareegga dhulka, ayay ku qoreen daraasadda. markaad eegto 10kii sano ee u dhaxaysay 1980kii iyo 1990kii waxaad arkaysaa isbeddel muuqda, laakiin markaad aragto 2010kii ilaa 2020 ma arkaysid isbeddel badan, taasoo keenaysa shaki ah in wareeggii gudaha ee dhulka uu istaagay, ayuu sii raaciyey Son. wareegga gudaha dhulka waxaa dhaqaajiya danabirlabeedka ka soo baxa qaybta dibadda ee dhulka, waxaana dheelitirnaanteeda saameeya cufisjiidadka dhulka. ogaanshaha sida xudunta guduhu u wareegto waxay iftiimin kartaa sida lakabyadani u falgalaan iyo hababka kale ee dhulka qotada dheer. si kastaba ha ahaatee, xawaaraha wareeggan iyo haddii uu kala duwan yahay ayaa laga doodayaa, ayuu yidhi Kalsig oo ah professor ku takhasusay juqraafiga kaasoo wax ka dhiga jaamacadda qaranka ee Australia. labada cilmi baare ee Son iyo Yan waxay ku doodayaan in iyadoo lagu salaynayo xisaabaadkooda, dheelitirnaan yar oo ku imaata awoodaha danabka iyo cufisjiidadku ay hoos u dhigi karto oo ay xitaa bedeli karto wareegga gudaha. waxayna aaminsan yihiin in ay tani tahay qayb ka mid a wareegga 10kii sanaba mar, iyo in isbeddelka ka horeeya midka ay ku ogaadeen xogtooda uu dhacay horraantii 1970kii. si kastaba ha ahaatee, waxay soo jeediyeen in natiijooyinka daraasada si taxaddar leh loo qaato, maadaama xog dheeri ah iyo habab cusub loo baahan yahay si loo iftiimiyo. waxay ku sheegeen dhibaatada ku cusub guud ahaan dunida. Son iyo Yan waxay isku raaceen in cilmi baaris dheeraad ah loo baahan yahay si loo xaqiijiyo arrinkan.
ugu dambeyntii Allah ina waafajiyo xaqa iyo sida sawaabka ah. diinteena suuban waxay hore inoogu sheegtay in uusan qiyaamuhu dhici doonin ilaa qoraxda ka soo baxdo gabaldhaca ama dhanka galbeedka. arrintaasuna waa mid la wada sugayo goray ahaataba, balse xaqiiqada dhabta ee cilmiga saacadda qiyaame Allah kaliya ayaa garanaya oo cilmigeeda leh, balse bini aadamku ma ahan mid ka warrami kara xilliga ay noqon doonto.